ku saramar mustawaha iyo darajada hadalkaaga ee maahan codkaaga. waa roobka kan soo bixiya ubaxa ee maahan gugaca ama hanqarka codka weyn ee dhacaya mararkay roobabku da'ayaan. qalbiyada fasahaadsani waa shan. way dambaabayaan iyagoo hadhow toobadkeen isleh. cilmiga ayay bartaan kumana camal falaan. arsaaqda alle ayay cunaan kamana shukriyaan. wixii alle u qaybay kuma raali noqdaan. kuwa dhintabay aasaan mana kuwaana qaataan. allow shantaa noocee quluubta ka mida naga badbaadi. saddex xaaladood markaad ku jirto ayay dadku kaa hadlaan ama wax kaa sheegaan. marka aysan haysan waxa aad haysato, marka aysan awoodin in ay adigoo kala noqdaan, iyo markay awoodi waayaan inay ku soo gaaraan. saddexdaasi xaaladood dadku waxbay kaa sheegaan ee dheg jalaq ha u siin. arrin la yaab leh, marka aad qof ammaanayso dadka oo dhan way ku dhagaysanayaan, laakiin markaad qof caynayso dadka oo dhan way ka soo qaybgelayaan. mid baa leh, ma aragti maaldhud wuxuu sameeyey. mid kalaa soo boodaya, anaaba ka yaabay kaas ma uur sharaf lahaa. laakiin marka aad wax ammaanayso waa lagu dhagaysanayaa. hortaada waxaa yaalla alwaax iyo dahab. alwaaxu markaasi qiimo ma laha markii dahabka la joogo, laakiin adigoo ku sugan badda dhexdeeda markii aad ku sigato inaad qarqoonto ama aad maashooto, waxa ugu horreeya ee aad qabsan doonto ama aad ku dhegi doonto waa alwaaxa. markaasi dahabku wax qiimaa ma lahan. haddaba ilaasho asxaabtaada. walaal, markaad ku jirta salaadda qalbigaaga ilaali, yacnii khushuuca. marka aad cunto cunaysana dhuuntaada ilaali, iska jiray kugu margane. markii aad joogto guri ay dad kale leeyihiin, yacnii aadan xaafaddaada joogin, araggaaga ilaali, meelaha ha eeg-eegin iska ilaali. marka aad dadka dhex joogtana carabkaaga ilaali, hadal yuusan kaa tegin iska ilaalihe. waan saamaxayaa si aan raaxo iyo furfurnaan u dareemo. waan iska hilmaamaa si aan u dhoolla caddeeyo. waan aamusaa sababtoo ah ma doonayo inaan doodo ama aan murmo. waan ismoogaysiiyaa sababtoo ah ma mudnaba inaan iyaga muhiimadda siiyo. waan sabraa sababtoo ah kalsoonida aan alle ku qabo xuduud ma laha. nafta wanaagsan ma hanto ilaa shakhsiga wanaagsan. siirada iyo dhaqanka qurxoon waa waxa ugu quruxda badan ee qofi uga tago quluubta dadka kale. qofka sababa farxadda qof kale dhab ahaan wuxuu xaqiijiyey farxaddiisii. rabbiyow, hadduu jiro qof nacaya inuu i arko anigoo faraxsan oo dhoolla caddaynaya, ku irsaaq farxad hilmaamsiisa arrinta farxaddayda. qofka aan shakhsiyaddayda garanayn xaq uma laha inuu aniga i xakumo, wuxuu rabana igu sheego. qofkaan i qadarin karin ama aan ixtiraam ii hayn kama malaysanayo inuu wanaag dhankayga ka sheegayo. karaamadayda iyo sharafta naftayda dhammaan way ka sarraysaa. ma jiro qof mudan inaan naftayda u dulleeyo, xitaa ilbiriqsiba allaha ka dhigee. walaal, sidaas waa inaad tidhaahdaa, maahan inaad isdullayso ama aad hoos isku dhigto. waxaad tahay qof adag oo awood badan, sharaf iyo cisana leh. dabeecaddaada ha beddelin si aad iyaga u raalligeliso. codkaaga ha beddelin si uu iyaga u cajabiyo. mabda'aaga ha khilaafin si aad iyaga u waafaqdo. ha iska dhigdhigin waxaadan ahayn si aad raalli ahaanshahooda u gaarto. adigu waxaad leedahay shakhsiyad. ku noolow oo samee waxa raalligelinaya rabbigaaga ayaa ku raalligelin doona. qof waliba oo kuu soo dhowaada micnaheedu maahan inuu dhagar kula maagan yahay ama uu doonayo inuu ku dhibaateeyo. quluubta qaar ee wanaagsan waxay raadisaa kuwo kale oo la mida. haddaad doonayso inaad muddo kooban ku noolaato farxad, aargooso. laakiin haddii aad doonayso inaad ku noolaato farxad weligeeda, dadka kale iska saamax. saaxiibka dhabta ah adoon la hadlin buu ku fahmaa. wuu ku rumaystaa adoon caddayn u keenin. wuu kuu naseexeeyaa oo kula taliyaa isagoon dan gaarana kaa lahayn. wanaagga ayuuna ku xasuusiyaa isagoon dana gaara kaa eeganayn.
saddex waa lagama maarmaan inaad maskaxda ku hayso mar waliba geerida ka badbaadi maysid adduunyadana raaxo badan ku heli maysid kana nabadgeli maysid hadallada dadka saddex samee saddex ka hor inta aadan hadlin ka hor ka fikir inta aadan qof xakumin nafsadaada dhig booska uu qofkaasi taagan yahay inta aadan quusan ka horna isku dayga ku celceli 5 shay oo muhiim ah ayaad noloshaada u baahan tahay si aad u guulaysato naftaada oo aad ku kalsoonaato waa tan koobaad tan labaadna waa inaad ku adkaysato fulinta tan saddexaadna waa inaad maalin waliba khayr malaysato tan afaraadna waa inaadan qofna naftaada la barbar dhigin tan ugu dambaysay shanaadna waxa ay tahay inaad iska moogaysiiso ama aad iskaga tagto wararka ay ka daba tuurayaan kuwa dadka niyad jabiya oday xigmad badan ayaa wiilkiisii wuxuu ku yidhi wiilkaygow noloshaada saddexa ka tanaasulin cuntada tan ugu wacan inaad cunto firaashkan ugu fiican inaad ku seexato guryaha kan ugu wacanna inaad degto wiilkii wuxuu yidhi waxaan nahay fuqaro aan waxba haysan sidee baan u samayn karaa arrimaha odaygii xigmadda badnaa wuxuu yidhi haddaad wax cunto oo keliya markaad gaajooto taasi waa cuntada ugu wacan haddaad shaqo badan qabato kadibna aad firaash ku seexato adiga oo daalan kaasi waa firaashka ugu wacan ee lagu seexdo haddii aad dadka wanaag kula mucaamalooto ood qalbiyadooda degto kaasina waa guriga ugu wacan uguna fiican guri la dego 3 shay ayay sameeyaan dadka guulaysta waxay malaystaan hadafyadooda waxay ka sheekeeyaan hadafyadooda waxayna yaqiiniyaan oo ay hubanti geliyaan inay mar un xaqiijin doonaan hadafyadooda way ku dhibayaan oo ku fowdaynayaan welibana sharaftaada meel uga dhacayaan si ay u soo saaraan waxa ugu xun ee gudahaaga ku jira kadibna markii ay arrinta arkaan waxay leeyihiin noocaas ayaa tahay maya walaal anigu noocaa maahi ee waa nooca aad adigu doonayso maamuluhu waa nin yimaada xilli dambe markaad adigu soo hormarto xilli hore ayuu yimaadaa markaad adigu soo dib dhacdo xukunku waa natiijo xigmad ka dhalata cilmiguna waa natiijo garasho ka dhalata qof aan xigmad lahayn xukun ma leh qof aan garasho lahayn cilmi ma leh waxaa kuu wanaagsan inaad iska aamusnaato oo ay dadka kale kuu maleeyaan qof aan waxba garanayn ama dabbaal ama axmaq ah beddelka intii aad hadli lahayd oo ay malooyinkaa kugu rumoobi lahaayeen marka dadka ahlu xaqa ahi ay baadilka ka aamusaan kuwa baadilka wadaa waxay isku maleeyaan inay xaq ku taagan yihiin cishada oo gacanta ku qabsada kuwa aad jeceshihiin weliba si wanaagsan una sheega oo u cabira jacaylka aad u qabtaan maalin maalmaha ka mida ayaa laga yaabaa inaad dunida ka tagtaan qalbiyadooda oo uu ku jiro hadal ay sheegi lahaayeen hilow ay kuu soo bandhigi lahaayeen ka digtoonaada inaad dhaawacyadiinna dusha ka toshaan adinkoon gudaha ka soo nadiifin la niqaasha oo la hadla u ceebtira waxyaabaha ay qaladka ka fahmeen sharaxaad badan siiya u ictiraafa qaladyadiinna ka tanaasula waxyaabo badan oo aad markii hore ku taagnaydeen noloshu aad bay u gaaban tahay ma mudna xaasidnimo cara la qarsado iyo weliba sidoo kale in qalbiga wax lagu haayo iyo qaraabo goynta berri waxaa noqon doonaa kuwa xasuusa kuwa markii la soo xasuusta la sheegsheego oo keliya ogowna malakul mowdku kaama idin dalbanayo albaabkana kuuma soo garaacayo markii la soo diro unbuu imanayaa hawshii loo soo dira buu qabsanayaa dhoolla caddeeya oo iska cafiya kuwa idin xumeeyey su'aalo aan wacnayn inaad dadka weydiisid laba waalid ha weydiinin sidee buu u dhintay wiilkiinnii ha weydiinin nin shaqola'aan ah gaar ahaan isagoo ragga dhex fadhiya ha ku odhan adiga maxaad ka shaqaysaa nin xaaladdiisu iska dhexdhexaad tahay ha dhihin oo ha weydiin mushaarkaagu intee buu la eg yahay qof faqiira ha weydiin ma lacag baad u baahan tahay balse sii adigoon su'aalin taa waxaa loo yaqaanaa deeqsinimada quruxda badan haweeney aan weli ilmo dhalin ha weydiin ilaa muddo intee la eg baad ilmala'aan tahay martina ha weydiin ma waxaad u baahan tahay cunto mise biyo aad cabto martidaada sharaf adigoon wax su'aala weydiin waan jeclahay nafaha noocaasa ee markay ku arkaan adigoo murugaysan ku dadaala oo dadaal badan ku bixiya inay kuu soo sheegaan akhbaar wanaagsan keliya si aad u faraxdo ama aad u dhoolla caddayso ha xumaynin weligaa qofku jecel ha ku odhanin mashquul baan ahay qofkuu baahan ha qiyaanin qofka kugu kalsoon ha hilmaamin shakhsiga mar weliba isagu ku soo xasuusta
haweenaydu waxay jeclaataa ninka leh 3 shay il aan arkaynin iyada mooye cid kale qalbi aan garanaynin sida wax loo qiyaano iyo ammaan iyo nabad iyo deganaansho aan dhammaad lahayn 3 ka digtoonow marka aad faraxsan tahay inaad ballan qaado sababtoo ah ma fulin doontid hadhowdii oo marka xaaladdu isbedesho waji kale ayaa kuu soo bixi doona iyo inaad jawaab bixiso marka aad caraysan tahay sababtoo ah markaa waxaad bixin doontaa jawaab taasi oo aad ka shallayn doonto muddo kadib sidoo kalena midda saddexaad ugu dambaysa waxay tahay go'aan ha qaadan adiga oo murugaysan sababtoo ah xaaladaadu markaa iskuma dheelitirna oo dhinac ayaad u badan tahay sidaa darteed go'aan ha qaadan markaad murugaysan tahay oo tiiraanyadu iyo murugtu ku hayso jawaabna ha bixin xilligaad caraysan tahay sidoo kalena waxba ha ballan qaadin marka aad faraxsan tahay markaad faraxsan tahay wax waliba waa ay kuu fudud yihiin soomaadan arkay markaad faraxsan tahay in wax walbo laga codsado ay kuu fudud yihiin laakiin markaad xoogaa muddo joogto saacado kadib waxaad leedahay hadaayto maxaad waxaas u ballan qaaday waa wareewni waan fududaaday ka waran ma aysan ahayn sidaa inaan yeelo iyo waxyaabo la mid ah ayaa ka iman doona markaad jawaab bixiso xilligaad caraysan tahayna waad ka shalay doontaa iyadana sidoo kalena go'aanka aad qaadato xilligaad murugaysan tahay wuxuu noqon doonaa mid aan la mahadin sidoo kale 3 ka mid dadka waa inaad ka digtoonaataa qofka khiyaanoolaha ah qofka dulmiga badan iyo qofka isku dirka badan hadduu dadka khiyaano adigana wuu ku khiyaani karaa hadduu wax dulmiyo adigana wuu ku dulmin karaa hadduu dadka isku diro adiga iyo dadka kalena isku keendiri karaa sidoo kale waa inaad ka fogaataa 3 nooc oo ka mid dadka kuwa adag ee mooganayaasha ah kuwa dadka u mujaamaleeya ama nacamleeyayaasha ah iyo kuwa wax magaratada ah ee jaahiliinta ah 3 shay faa'iido ma lahan xoolo ama maal ku jira gacanta bakhiil seef ku jirta gacanta qof fulay ah iyo qalin ku jira gacan munaafiq 3duba faa'iido ma lahan qalin ku jira gacan munaafiq wanaag kama filanaysid inuu qoro seef ku jirta gacan fulay kama filanaysid in wacdaro lagu muujiyo maal iyo xoolo ku jira gacan bakhiilna inuu ku soo gaarood wax ka faa'iido ka filan maysid 3 haddii ay hortaada ku hadlaan dhagayso hadalkana ha ka jarin war xunna ha u dambaysiin labadaada waalid carruurta iyo qof murugaysan sababtoo ah 3danba markay hadlayaan waxay ka hadlaan qalbigooda weeyaan waxa hadlaya ee iyaga maahan sidaa darteed jawaab xun ama hadal xun ama hadalkood ka goysa ha ku qaabilin sheekha la yiraahdo Sufyaan ath-Thawri Allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariistay wuxuu yiri ka digtoonow carada alla 3 bay ku jirtaay inaad ka gaabiso wixii uu ku amray inuu ku arko adiga oo aan raalli ku ahayn wixii uu ku qaybay ama uu qayb ku siiyay iyo inaad shay dalbato adduunyada oo aadan helin markaana aad Allah subhanahu wa ta'ala u carato tiraado muxuu Ilaahay ii siin waayay 3daaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala caradiisa ayaa laga dhaxelaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku amray inaad ka gaabiso kaaga caroonaya hadduu arko adiga oo wuxuu ku siiyo qayb ahaan ku siiyay diidanna Ilaahay wuu ku carooda adigoo shay dalbaday shayga hadaad weysana Allah subhanahu wa ta'ala u xanaaqay Allah subhanahu wa ta'ala isna wuu ku caroonaya ilaahu hanu caroon ya rabbi calaamadaha munaafiqu waa 3 haddii uu sheekaynayo been buu sheegaa haddii uu ballan dhigana ballanka baxyuu sameeyaa haddii la amaanaysto wax loo dhiibtana wuu khiyaanaa candhuufa kutufin ceel waxaa laga yaabaa inaad maalin biyo ka cabtide ceelka aad candhuufta ku tufaysa maanta adigoon u aabbayeelayn waxaa laga yaabaa in maalin haraad iyo ku soo qabto oo aad biyo ka cabtid haddaba ceelkii shalay aad candhuufta ku tufto haddaad maanta biyo ka cabti ka waran marka horeba ilaahay ka baq oo ilaali xoolaha guud hana ku ciyaarin hantida dadka xigmadaasan soo xusnay waa candhuufa kutufin ceel waxaa laga yaabaa inaad maalin ka cabtide waxaa loola jeedaa qofna hadal xun ha ku oran waxaa laga yaabaa inaad maalin u baahate qofka maanta hadalka xunaad ku oranayso xaalad baad ku jirtaa xaalkaagana inuu qasan yahay ayaa laga yaabaa amaad caraysan tahay balse maalin ayaad u soo baahan doontaa qofkaas wajigee baad la hortagi doontaa maadaama markii horeba aad aflagaadaysay amaad caysay amaad xumaysay xigmadda xigta waxay leedahay ciddaad doontid la dood laakiin qofna ha caayin ahaa qof sabar ku tilmaaman dulqaad badan leh oo adkaysi leh
ha noqonin qof isla markiiba dhirfa oo isla markiiba ay ka tagaan erayo badan oo noloshiisa inta ka dhiman uu ka shalaayo. xigmadda xigtaa waxay leedahay dadka xumaanta fishaa ma arkaan nolosha harkeeda mooye. noloshaba wanaaggeeda iyo quruxdeeda uma jeedaan, harkeeda oo keliya unbay hoos taagan yihiin. markaa ayay filanayaan wax aan wacnayn ama xumaana. ha qorin waxyaabaha aad doonayso inaanay cidi kaa aqrin, xitaa buuggaaga xasuus qorkaa ha ahaadee. haddaad rabtid in shaygan aan lagaa taaban, qofna uusan kula wadaagin, qofna uusan aqrin oo arkin oo ilna saarin, ha qorin, iska dhaaf. wixii qoran bulshadu way akhrinayaan maadaama ay garanayaan qaabka wax loo akhriyo. tan waxaa laga yaabaa inay walwal iyo walbahaar kugu abuurto maadaama aadan doonaynin in la akhriyo shaygii adigu meesha aad ku qoratay ee gaarka ku ahaa. sidaa darteed qalbigaaga iyo gudahaaga ku hayso waxa aad doonayso inaanay dadka kale kaa ogaan amaanay kaa akhriyin. xigmadda xigtaa waxay leedahay ha ku marmarsiyoon wakhtiga igu yar, maalintaadu waxay la eg tahay maalmaha adduunka oo dhan. kuwa guulaystay maalintoodu waa intaasuun. 24 saac ayay haystaan, 24 saac ayaad adiguna haysataa. ee ha ku marmarsiyoon wakhtiga igu yar, ee wakhtiga nidaamso oo meel iska soo saar waxna qabso. xigmadda xigta waxay leedahay si taxadar leh u dooro xaaskaaga, maxaa yeelay waxay mas-uul ka tahay 90% farxaddaada iyo caradaada. haddaba si taxadar leh u dooro xaaskaaga. haddii marka hore aad doorato qof aadan u meeldayin, hadhowdiina noloshaada ay mugdi noqoto ama aad mar walba murug ku jirto iyo diiqad, taa waxay noqon doontaa midaad ka shalaydo, noloshaadana baabi'isa ugu dambayn. sababtoo ah markii horeba umaadan meeldayin oo maadan dooran xaas u qalma noloshaada ama dabeecadahaaga iyo qaabka aad tahay ama nolosha habka aad ugu socoto kula fahmaysa. qof aad isfahmi kartaan ama aad garanayso dabeecadihiisa ama waxa uu yahay shakhsiyaddiisa dooro marka horeba, si aad u ahaato qof marka dambe ka hela wixii uu doonayay oo farxad ah ama reerayn iyo bashbash ah. carruurtaada ha ku hor canaanan dadka kale hadday wax kasta sameeyaan. taa waxay gudbinaysaa sawir qaldan iyo muuqaal aad u xun oo laga qaadanayo habtarbiyayntaada, waxtoosintaada iyo hagaajintaada, oo waxay dadku kuu qaadanayaan xitaa haddaad qof fiican ahayd oo marka ay ka xumaato xanaaqay, qof dabeecad aad u qallafsan leh, reerkiisa necab, ilmihiisa si qaab daran ula dhaqmaya, oo aan noqon karin qof mas-uula oo ilmo kafaala qaadi kara. sidaa daraaddeed intii qiimahaagu yaraan lahaa, ilmahaaga ama carruurtaada ha ku hor canaanan dadka kale, sababtoo ah xitaa sharaftaaday baabi'inaysaa. iska ilaali, ilmaha niyaddoodana way dilaysaa oo marka dad lagu hor canaanto waxay noqonaysaa fadeexad iyo ceebayn, halka si gaara marka loo canaanto ama si tartiiba loola hadlo ay noqonaysa nasiixa iyo taladaasi oo laga yaabo inuu qaato waxnay u tarto mustaqbalkiisa. laakiin iska ilaali inaad dhaleecayso ilmaha maad canaanato iyagoo dadka kale ay kula joogaan. xigmaddan xigtaa waxay leedahay haddaad ku waajahdo deganaan carada dadka kale, waxay dareemi doonaan qajil iyo yaxyax iyo dembi, cudurdaarna way ka bixinayaan marka dambe. haddii aad deganaan ku waajahdo tartiib carada dadka kale, iyagoo caraysan bay qaylo kula soo galeen, markaas ayaa si degan ula hadashay, qofkaas wuu qajili doonaa, xanaaqsanaa. markuu xasilana aad buu uga xumaan doonaa wixii uu sameeyey, isagoo ka cudurdaaran doonaa aakhirka. xigmaddan waxay leedahay saaxiib kasta ha ku moodo inaad tahay saaxiibkaaad isugu dhowdihiin ee aad ugu jeceshahay. u muuji saaxiib kasta wanaagga iyo khayrka uu kaa mudan yahay, hana u mujaamalayn beenna ha u sheegin, oo agtaada qiimaha ka lahaado, sababtoo dadku waa nafsaani, oo hadday kaa dareemaan wax yar oo yasma ah ama wax yar oo laga yaabo inaadan adigu u qasdin laakiin sharaftooda meel uga dhacaya, waxay dareemayaan in agtaada wax qiimaa aysan iyagu ku lahayn. xigmaddan waxay leedahay hadduu ninka guriga noqdo fulay, tuuguna uu noqdo mid dhiiran, gurigaasi waa ku daayey. guri uu joogo nin fulay ah haddana tuug dhiiran soo galay, maxaad ka sugaysaa? waa habaa'an manhuuran, eber buu ka dhigi doonaa qofkaasi tuugga ah oo wuxuu raran doonaa dhammaan guriga waxa yaalla, ilaan cid ka ceshanaysaba ma lehe. ha dhiman adigoo nool waa xigmad kale. dad waxaa jira iyagoo nooloo naftu ku jirto oo dhaqdhaqaaqaya, haddana qiimo aan nolosha u lahayn, wax ay tarayaan ama ay ku tooran yihiin aanay jirin. haddaba iska ilaali dhibaatada weynee ah ha dhiman adigoo nool. dhibaatada ugu weyn waa inaannu jaahilku garanayn inuu jaahil yahay. bal adiguba suurayso ka sheekee qof jaahila haddanaan garanayn inuu jaahil yahay. run ahaantii waa dhibaato. qiimaha hadalku waa inuu gaabtaa. hadalkaaga mar kastuu gaaban yahay waa mar kastoo aad qiimo yeelataa, waa mar kastoo hadalkaagu qiimo iyo qaayo uu u saaxiib yahay. hadduu batana iska baddaa bulshadu way nacaysaaye.
dadka kale ku dawee qalbi wanaag iyo runta dareemadooda. la saaxiib dadka alla ka cabsiga badan dadkana wanaajiya. hadday alla ka cabsadaan waxay ku bari doonaan dabciga wanaagsan ee taqwada iyo alla ka cabsiga hagaagsanaanta iyo toosnaanta. dadka hadday wanaajiyaanna waxay ku bari doonaan wanaajinta dadka, oo taqwada alle iyo dadkoo la wanaajiyaa waa khayr iyo same aad u ballaaran, runtiina aan la soo koobi karin waxa khayr iyo wanaag laga heli karo. ceebahaaga ku tusaalee ceebaha aad dadka kale ka aragto, iskuna day inaad hagaajiso. ceebaha dadka markaad ka aragto naftaada ku mashquulo ku soo noqo. meeqa ceeb bay leedahay? kumanaan. ayaga soo dawee oo hagaaji oo ku mashquul. ha ku mashquulin ceebaha dadka kale, waayo adiguba wada ceeba ayaa tahay. qurux badnaanta hadalkaagu waxay ka tarjumaysaa toosnaanta fikirkaaga. kor ha u qaadin hadalkaaga, laakiin kor u qaad qiimaha kelimadaha aad ku hadlayso. mar walba hadalkaaga ayay dadku qiimeeyeen qaabka aad u hadasho. haddaad iska hadaaqdo afkana iska taagto, wax badan ayaa kaa tegaya, qiimo badanna dhulka ayuu gelayaa oo aad bulshada dhexdeeda ku lahayd. haddaba si aad taas uga badbaado, hadalkaaga qurxi oo mustawaha iyo darajada iyo heerka ereyada aad ku hadlayso ha ahaado mid sarreeya. laakiin weligaa ha isku dayin inaad dad kale iska dhigdhigto ama qiimaha hadalkaaga aad dhumiso oo meel kale oo aadan waxba ka keenayn aad isku mashquuliso. dad waxaa ugu fiican kuwa aan dadka waxba ka sheegin, waxaana ka sii fiican kuwa wanaag ka fisha dadka kale. xooluhu noloshooda waxay ku dhammaystaan iyagoo ka baqaya waraabaha, kadibna waxaa cuna arijiraha. meel kale ayay cabsidu uga dheggan tahay, laakiin meel dhow ayay sheekadu uga soo baxaysaa oo hoostooda ayaa laga soo dusayaa xoolaha. laakiin meel kale ayay uga dheggan tahay oo ay ka cabsanayaan, waayo kan way isku aamineen wayna og yihiin in aanu weerar ku ahayn, balse uu yahay qof si tartiib tartiiba u dhammaynaya. ka digtoonow qofka aad siinayso kalsoonida. waxaa laga yaabaa inuu yahay saaxiibka, laakiin uu yahay cadowga. qof aad saaxiib u moodayso ayaa jira oo hoos cadow ka ah. haddaba qofkaa ka digtoonow oo iska ilaali. qofna ha xukumin adigoon aqoon. wax xukuna ha saarin qof. ha ku tilmaamin tilmaam gaara adigoon aqoon u lahayn, waayo maba taqaanid wax kaaga baxsan qofkaasina ma jiraan. xukun marka la dhiibayana waa in la eegaa dhammaan jawaanibta, wax badanna la qiimeeyo. faa'iido ma laha nadaafadda joogtada ah iyo hagaajinta dharku inta ay carabka iyo qalbiyadu ay wasaqaysan yihiin. haddiiba qalbigii iyo carabkii uu wasaqaysan yahay, muxuu dhar la hagaajiyaa oo la qurxiyaa uu tarayaa? marka hore hagaaji carabkaaga iyo qalbigaaga, kadib ayaad hagaagsanaysaa dharkaaga. waxa ugu fiican ee ku difaaca markaad maqan tahay waa akhlaaqdaada. shayga keliya ugu wacan ee ku difaaci kara ama mar walba dadku ku sheekaysanayaan markaad maqan tahay waa akhlaaqdaada. hebel waa sidan, waa nin degan, waa nin xasiloon, waa nin akhlaaq fiican leh, waa nin dulqaad badan. yacni dabeecadahaagii ayaa markaasi ama akhlaaqdii lagugu yaqaanay wanaagsanayd ayaa ku difaacaysa. laakiin haddaad tahay qof marka horeba ku tilmaamnaa akhlaaq darro, talow waa maxay waxa lagugu ammaani doono amaba lagugu difaaci doono? ma jiraan. dadkoo dhan caayda unbay kuu sii saarin doonaan oo kuu sii laba jibaari doonaan. qofka iibiya shay qaali ah bilaa lacag wuxuu lacag qaaliya ku iibsadaa wax raqiisa. waxaan qiimo lahayn oo ebra ayaad lacag qaaliya ku iibsan doontaa, maadaama aad shayga qiimaha leh aad bilaa lacag iibisay. ka digtoonow qof sheeganaya inuu aqoon iyo cilmi leeyahay, maxaa yeelay waxa uu ka khatarsan yahay jahliga laftiisii. qofka wuxuu sheeganayaa aqoon iyo cilmi. anigaasaan, aniga ugu aqoon badan, aniga ugu haysta, aniga ugu sarreeya, aniga halkan ka taliya, aniga yaan laygu qabsan. waxa ayuu daldalayaa. qofkaasi xitaa jaahilka waa kasii daran yahay, sababtoo jaahilku waaba qof jaahilon waxba aqoonon war haynin, laakiin qofkan isagoo jaahil ayuu sii faanayaa. saaxiibka munaafiqa ah waxa uu ka daran yahay 10 cadowgaaga ah. qofka loogu necab yahay dadka dhexdiisa waa qofka runta sheega. maba la jeclo qofka runta sheega, balse ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay. haddaba runta sheeg oo xaqiiqada ka hadal oo xaqa ku dhawaaq, cidna ha uga cabsan. inaad 2 jeer weydiiso ayaa kaaga khayr badan inaad mar qaldanto. dhowr mar inaad qofka wax weydiiso oo tafsiirkiisa iyo waxa loola jeeday iyo bayaamintiisa aad raadsato ayaa kaaga khayr badan inaad mar qaldanto. ha ku qasbi naftaada qofka ku diiday inaad isaga tagto ayaa ka fiican intii lagugu ciyaari lahaa. oo qofkan uu wuxuu raba kaa dhigan lahaa oo sheeko iyo kaftan iyo madadaaliyo maaweelo kaa dhigan lahaa, kugu dheedheeli lahaa oo kaa xaraabaysan lahaa, sidoo kalena uu ku doqonsan lahaa. marka horeba ka tag maadaama uu ku diiday. iska daa oo faraha ka qaad, yaanu kugu dhibcabadsan. caqliyada laguma qiyaaso da'da ay jiraan. imisa iyagoo yar caqligoodu weyn yahay, imisa ayaana caqligoodu maran yahay iyagoo waaweyn. haddaba da'da qofku jiro, caqligiisa iyo garashadiisa iyo garaadkiisaba laguma qiyaaso. intaas ayuu ku kooban yahay barnaamijkeena maanta. haddaad ka heshay leeg ha ilmaamin. haddaad nagu cusub tahay subscribe dheggan balaalka furo si ay kuu soo gaaraan dhammaan barnaamijyada halkan aan soo gelin doono. intaas ayuu ku kooban yahay barnaamijkeenu maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.